العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، waxaynu ku soo dhex jirnay awaaqirka kitaabu dahaara ay ka mida kitaabkii cinwaankiisa u ahaa buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam walifay alimaam alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahu llahu tacaala. kitaabu dahaara baabkii ugu dambeeyey ayaynu ku dhex jirnay baabulxayd. mu'alifka raximahu llahu tacaala wuxuu oran: wacan abi saciidin, abi saciid ayaa laga wariyey radia allaahu allah ka raali noqday canhu xaggi. qaala waxa uu yidhi abu saciid, qaala waxa uu yidhi rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu allaha ammaanay calayhi dushii wasalam allah nabadgeliyey, alaysa miyaysan ahaanin idaa xaadat marka ay dhiigto haweenayda lam tusalli midaanan tukanayn walam tasum aanan soomayn. muttafaqun calayhi fii xadiidin dawiil. xadiidka waa xadiid muttafaqun calayhi, bukhaari muslim ba ay soo saareen, waana xadiid dheer. xadiidkani macnihiisa guud waxa weeye abi saciidin alqudri radia allahu canhu wuxuu ka waramay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin ciidaad inuu u soo baxay musallaha lagu tukanayay. markii ragga u khudbadeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo maray haweenkii. waxa uu yidhi: yaa macshara annisaa tasaddaqna fa innii araytukunna akthar ahli nnaar. kulankii haweeneeday sadaqaysta ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, waayo waxaan idin arkay inaad tihiin kuwa cadaabka ugu badan. haweenkii waxay yidhaahdeen: wabima yaa rasuula allah, maxay ku dhacday rasuulkii allah inaan cadaabka ku badanno? nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: tukfirna allacan wa takfurna alcashiir. waxaad badisaan lacnadda, zawjkeedii qabana waad dafirtaan wanaag walbo idiin suubiyo oo aad ku kufrisaan. markaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam: maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin, ma aanan arag kuwo diinkoodana naaqis yahay caqligoodana naaqis oo yahay. lana tegis og lilabbi rajul alxaasim, caqliga ninka go-aanka leh, min ixdaakunna middiin. oo wuxuu yidhi dumar waxaad tihiin caqligoodana naaqis yahay diinkoodana naaqis yahay. laakiin ninkii go-aanka lahaa ee caqliga badnaa caqligiisa la tegi og, oo wax walba iyo go-aan walbo ninka oo ku fogaado cidda soo dhoweyn karta go-aanka kana bedeli karta ninka waa haweenka.
ninkii hooshisa la xalin waa inta badan dumara soo dhameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu yiri la tagis og ninkii caqliga lahaa caqligiisa ma aanan arag way su'aalin marka waxay yiraahdeen ma nuqsaanu diinina wa aqlina ya rasuulallah maxay tahay nuqsaanta diinkeena iyo caqligeena rasuulkii Allah marka ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam alaysa shahadatu almar'a mithla nisfi shahadati ar-rajul miyaysan ahaanin marqaatiga haweeneyda barka marqaatiga ninki waxay yiraahdeen bala iska badaayaha rasuulkii Allah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taa waxa weeye nuqsaanta diin waxa weeye caqligooda nuqsaanta caqligooda marka ayuu hadana baray nuqsaanta diinka uga jirto wuxuu yiri alaysa idha haadat lam tusalli wa lam tasum miyaysan ahaanin markay dhigta haweeneyda midaanan tukanayn oo aan soomayn waxay yiraahdeen haweenkii bala wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam fadhalika min nuqsaani diiniha ka waxa weeye nuqsaanka diinkeeda way haweeneyda marka xaafidka xadiidka waa soo ikhtisaariyay shaahidka ayuu ka soo qaatay alaysa idha haadat lam tusalli wa lam tasum miyaysan ahaanin gabadha markii dhiigga oo ku dhaco midaanan tukanin oo aan soomin taa way nuqsaanta diinkeeda shaahidka halkaan waxa weeye xadiidka loo soo arooriyay lagana faa'iidayo gabadha markii dhiig caado oo ku dhaco salaadna tukan mayso mana soomayso inta dhiigga uu joogo waxa laga qaadanaya qolka nabiga calayhi salaatu wasalaam alaysa idha haadat lam tusalli wa lam tasum imaamka rahimahullahu ta'ala wuxuu oran وعن عائشة هيا لغوريي رضي الله والله كرر النقضي عنها حق إذا قارض وحيتر عائشة لما جئنا مركي أين كنمي لما جئنا مركي أين نمي صرفة ميشا ليرادو حيث وانديغي صرفة وموضع أجرة لحميل مكة المكرمة مكة هي صرفة وحيث أجرة لحميل عائشة وحي لحجنيس النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع waxa ay tiri marka lama jiina markaynu nimid sarifa meesha la yiraahdo xittu waan dhiigi caada ayaa igu dhacay فقال وحير النبي صلى الله عليه وسلم افعلي صوب عائشة ما يفعل وحاو سمينا الحاج متك حاجية غير ألا تضوفي مركا لغصر ريبين هذا ضوافي بالبيت بيتك حتى تطهري إلا الظاهر نغط متفق عليه في حديث ضوي حديث كان قصدي سواعي دير الأسرع شاهد كان وحويه عائشة رضي الله عنها أيضا حجنا سمرك اللي قعاد وكل عاي النبي عليه الصلاة والسلام حاوكيري وحاسو بسا وحاو سمينا يوم متك حاجيقا مركا لغصو ريبو إنا ذن طوافين بيتك إلهي إلا الظاهر موت هلكا وحا لغا قادم قبل حجنا يسا haddii dhiigii uu yimaado ayadoo acmaashii gudanaysa waxay gudanaysaa manaasigta oo idin marka laga soo reebo dawaafka shardiisa waxa weeye inay daahir tahay qofka carafo waa istaagi karaa musdalifa waa baryayaa dhagax tuurka waa suubinayaa mina waa u baryi manaasigtoo idin inay gudato waa u bannaantahay haweeneyda dhiigga caadada qabta waxaa loo diiday inay dawaafto beytka ilaahay halkaa marka waxaa ku sugan in loo diiday dawaaf gabadha dhiigga caadada qabta dawaafka waxaa isku mid ah inuu yahay dawaaful quduum markii maka la gelayo dawaaf kala dawaafo ama dawaaful ifaada
الوداع طواف كل يرادو سغوتيس كا oo qofka markii maka uu ka baxayo tawaafo qof kasta waa laga rabaa laakiin gabadha dhiiga caado oo ku dhaco waqtiga markay acmaashi gudatay ay maka ka bixid dhiiga caado ku dhaco ayaa tawaaf الوداع waa ka dhacaya oo iska baxaysa laakiin tawaaf القدوم iyo tawaaf الإفاضة waa isuganaysa inta daahir noqonayso dawaafkana wuxuu la mid yahay salaada oo kale waxa loo shardinayaa tahaara xadiidkan culimo badan waxay ka daliishadeen haweeneyda dhiigga qabtay inaysan masaajid geli karin waayo beedka ilaa inay gashay dawaafto waa loo diiday Caaisha radiyallahu anha markii dhiigga uu ka dhacay wuxuu xoojinaya xadiidkii hore la soo maray inni la uhillu almasjid lihaa'id wala junub aniga uma xalaaleynayo masaajidka mid dhiig qabta iyo mid janaabo qaba Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabil إمامك رحمه الله تعالى وحورا وعن معاذ أيان لقوري رضي الله عنه أنه سأل إنه السؤالي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل محا أحل النقنية للرجل منك من امرأته حاسكس وحل النقن وهي حائض أيضا لقبته معاذ رضي الله عنه نبي أي السؤالي صلوات الله وسلامه عليه نكم حلال حاسكس حلال أيضا لك عادة قبته قال وحاول النبي عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار وزغنتي وحي كسر أي أبو حلال معناه هو محي تحت الإزار وما حلال رواه حديث وحاول أبو داود وضعفه وانا ضعيفه حديث كان حديث ضعيف مصرنا السند كسواحة كجر الوضع فيه بقية بن الوليد واني مدلس ما فوق الإزار معناه لأنه وحوي ما بين السرة والركبة وروح عن أسوق هذا النبي حديث كتلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إنه يريد صوبي الشيء والبه إلا النكاح قال موضوع عن صوبي ونك حاسس إنه الاستمتاعي وبناتها وحي قال مدك السخية حديث كتلمامي ما فوق الإزار وحديث ضعيفة سنة في سنة حكجر بقية بن وليد وأهل مدلسة إمامك رحمه الله تعالى وحورا وعن أم السلمة هي لقوريي رضي الله والله كرر النقضي عنها حقيقة قالت أم السلمة وحايته كانت وحي أهايين النفصاء قبلها ديقة ومش وجوه تقعد مدي فليستا في عهد رسول الله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها ديقة كذب 40 أفرتا معناها مركي أمشى كذب بعد نفاسها أمشى إذا كذب 40 أفرتا رواه حديث وحاولي الخمسة إلا النسائي واللفظ لفظ قال لي أبي داود يوصلنا وفي لفظ وحاول يحسنا له أصل وصلنا ولم يأمرها مؤوسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس مدة نفاس كأجوها مليق أمشى صلاة إني قدود ولم يأمرها مؤوسا أمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس أمشى صلاة ديدة سوغدي ديدة النبي مؤوسا فريق ومعناها قبل الليقة أمشى أجوها صلاة دي كتغس إني سوغدي النبي مؤوسا فريق وصححه وحسنه حديث الحاكم حاكم حديث وحوة المامية مركي هويني دشو dhiigga u yimaada inay tirsanayso afartan Salama radiyallahu anha waxay ka waran waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dumarka saxaabiyaadka markay umulaan afartan inay tirsan jireen
afartanka salaad ma aysan tukanayn mana aysan soomin waayo waxa uu jooga dhiigga umush salaada aysan tukanayna ma uusan amrin nabiga calayhi salaatu wasalaam inay soo gudaan gabadha marka umusha waxay la mid tahay gabadha dhiigga caado u jooga gabadha dhiigga caado u jooga soomka waa ay soo gudi salaada ma ay soo gudayso nimanka la yiraahdo khawaarijta diinkan isku adkeeya waxay aaminsan yihiin mas'ala khilaafsan hadigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin gabadha dhiigga caado u joogo marka dhiigga caado ay ka daahir noqoto salaadihii oo dhan waa laga rabaa sida soomka looga rabo diinteenana qawaacida ku dhisanta waxaa ka mid ah al-mushaqqa tajribu at-taysir culayska wuxuu soo jiitaa fudayd ilaahay wuxuu oranayaa wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay diinkiina kagama yeelin wax culays ah qawaaciddaasoo dhan waa khilaafeen khawaarijta marka culamaa ahlu sunna ayagoo adilada ku camal falaya waxay qaateen daliilkan gabadha maadaama salaadaha shanta ah maalmihiina badanayaan salaadihiina cuslaanayaan sharciga islaamka oo ka fududay عائشة رضي الله عنها قبل سؤال شوحي تري قبل الليقة كل عكور صلاة مية سجوديس وحي كنت لما خوارج تتكميت حرورية مياتا معنا ذلك كاس ملء كاس أمسن أسقاط كذي مركز ترى عائشة أنا الليقة وأنا بدي عجري وحنا الفرج المكان ظاهر نقولنا إن الصلاة دي إن الصوم كسوجودنا صلاة ده عن السوجودين مركز صلاة السوجود ميسا قبل نفاس كقبطة الليقة معرفة عادة وحي سوجوديس وحوي الصوم هل كواحد نقول ماضي باب الحيض وقنا الدنبية كتاب الطهارة فلله الحمد والمنة هذا الصوم راجعيه وكتاب مهم كتبت الغرفة في التفقه جناعة أحاديث باب كقصة وقفك حفظينا واو الليباني قارهان أما قودهان كتاب الطهارة فحن مرينا بقول يقرأ الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك